madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa mar kale waxa uu sheegay in howlaha doorashooyinka ay dowladda soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb ay yihiin kuwa ku socda musuqmaasuq waxa uuna sheegay in aysan qayb ka ahayn ololaha doorashooyinka ee ka socda deegaanada galmudug waxa uu sheegay in xildhibaanada cusub ee galmudug ay dowladda federaalka 69 ka mid ah madaxtooyada soomaaliya ku soo xushay islamarkaana laga ilaaliyey kuwa xiriirka la leh maamulka ahlusunna waljamaaca isagoo sii hadlayey sheekh maxamed shaakir cali xasan waxa uu sheegay in doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ay ahayd mid musuq iyo lacag lagu doortay islamarkaana doorashadaas ay ahayd mid afduub ah waxa uu mar kale sheegay sheekh maxamed shaakir cali xasan hogaamiyaha maamulka ahlusunna in maamulkooda uusan ka qaybgeli doonin doorashada la filayo in maalinta berita ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhanka kale magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda diyaargarowga dhegaysiga khudbadaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la filayo in goordhow ay ka bilaabato magaalada dhuusamareeb maanta oo arbaca ah ayaa la filayaa in xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ay kulan yeeshaan waxaana kulankooda ay ku dhegaysan doonaan khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ilaa 9 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa iska diiwaangelisay guddiga doorashada 5 musharax oo u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug ayaa si rasmi ah u qaatay shahaadada waxayna kala ahaayeen axmed cabdi kaaree qoorqoor cabdiraxmaan axmed sabriye axmed shire maxamed falagle iyo axmed cabdulaahi samatar halka 5 musharax ay u taagan yihiin qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka galmudug doorashada la filayo in maalinta berito ah oo khamiis ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa si cad u diiday inay ka qayb galaan 4 musharax iyo hogaanka ahlusunna iyaga oo ku sheegay habka ay u socdaan doorashooyinka uu yahay mid afduub ah ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ayaa la soo warinayaa in aad loo adkeeyey waxaana macquul ah in xilliga loo asteeyey doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ay wax iska beddelaan